weli daawadayaal waxaanu ku sugannahay bartamaha suuqa ugu weyn Hargeysa ee Waaheen oo xalayto dab qabsaday uu gabi ahaanba baabiyay suuqan waxay la jooga qaar ka mid ah kooxaha caafimaadka oo aan weydiin doono bal warbixinihii ugu dambeeyay ee ay hayaan abdullaahi runtii Hargeysa dib badan baa soo gaadhay massive destruction waxay raadaan caalamka runtii burburka weyn ee soo gaaray waxa uu ku habsaday u badnaan maalkii adduunka ku dhanaa suuqa Waaheen runtii ilaa hadda xaalada caafimaad ee la sheegaya waa ilaa 60 xaaladood oo xaaladood oo ku arsanaa cusbitaalka ilaa saaka weyn iyo 20 xaaladood markiiba runtii la saaray ilaa hadda ciidanka qaarkood iyo dadkii ka shaqeynayay oo kuwa kale jiruntii ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan haday tahay waxyaabo sare iyo waxyaabo kale dadyo kale jiruntii nafqabato uu jiro oo runtii ku sumoway sonaha runtii ka imanaya looxaanta iyo biraha xabaha kala duwantii bulshada Soomaaliland waxaan sheegnaa suuqa inaan ku soo fatiin ee ka joogan suuqa ay guryaha ku sugnaadaan ciidanka samata bixinaya iyo runtii ciidamada kala duwan samata bixinaya iyo dawladda hoose runtii u daayaan uga baxaan dumarka waliba gaar ahaan dumarka laga hayo suuqa laga hayo waayo waa cid intii ugu badanay suntan aad u saameynayso intii ugu dambeysay xaaladaha caafimaad marka waxaan u sheegnaa bulshada inaanay suuqa ku soo fatiin ay u daayaan ciidanka samata bixinaya ciidankana waxaan ku encourage gareeyaan dhamaantood leeyahay xidha maaskada in keenay wada xidha waayo suntu qofku uu isleersanaya laakiin suntu inuu bay ka soo gaaraysa wabillahi tawfiiq ilaa iyo hadda inta aad ka ogtahay dadka ku waxyeeloobay dabkan ama gargaarka u fidisan ma shaqaalihii ma hawlwadanadii gargaarka mise waa dad kale oo shacab ka kooban tahay shacabkii haday tahay dad shaqal workers haday tahay runtii dad bisha cas oo runtii aad caawimo weyn uga qayb qaadatay iyo wasaaradda caafimaadka isku dhan waliba gobolkii Marojeex aanu qayb ka mid ahay runtii ayaa runtii kaalmada ilaa xalay fidinaysay isku duwaa iyo tiimkiisa ilaa wasaaradda caafimaadka dhan runtii cidna may kala seexayn la dhaqaatiirtii ilaa neers dhamaantood marka alxamdulillah ilaahay waa noo fudeeyay wax dhaawac badan ma soo gaarin dhimasho ma jirtaa oo yaraatay laakiin dhaawac yar baa jira laakiin waxa ka daran oo xaaladda imika soo gadhisa dadka runtii sumowga ay soo gaarayso runtii suuqa ku soo fataaya marka waxaan u sheegnaa dadka runtii inay suuqa ka joogaan siiba ahaan dumarka iyo ciyaalka oo laga hayo suuqa runtii ciddii alaabta ka guran sawaalkii laakiin ciddii kale inaanay suuqa u iman daawasho ay u timaado ay u soo duceeyaan dadka magaranta musiibooyinka ama haleeleen runtii Allahu akbar ilaa iyo hadda ma jiraan wax caqabad ku ah kooxaha caafimaadka ama caqabaday tirsanayaan oo haysata arrimaha gurmadka ay halkan ka wadaan alxamdulillah caqabad ma jirto qofkii wax gaaraan markaba tiimka wasaaradda caafimaadka tiimka runtii bisha case caawinaya volunteerka iyo tiimka kale social workerska ee runtii u gudbinaya kolba ilaa toos loo geeyo xarumaha caafimaadka ee cusbitaalka inagu horeeya